dunidan ee hadda aan ku noolnahay waa duni mar walba horumar ka gaaraya dhanka teknolojiyadda. saan wada ognahay daabacaadda ama printingka wuxuu ka mid noqday nolosha caadiga dabiiciga ah. waxaa laga yaabaa in printero waaweyn aad isticmaasho ama shirkad ay isticmaasho inay ku daabacto boorar waaweyn, ama waxaa laga yaabaa in printero yaryar xafiisyadu ay yaalaan oo lagu daabacayo warqadaha A4 iyo wixii la mid ah. noloshu haddaba sidaas ayay tahay, marba waxbaa soo kordhaya. sanooyin ka hor wax printer ah ma la isticmaali jirin oo iska yaree daabacaadda. hadda balse waxaa la taagan yahay xilli xitaa guryaha caadiga ah in printer la soo dhigto oo qofka dokumentigiisa muhiimka ah halkaas uu ka daabacdo. waxaa soo kordhay printer la yiraahdo PrintCube printer. waa printer aad u yar oo jeebka xitaa geli kara, oo hal qad kaliya qaada. qadahan caadiga ah ee cartridge-ka ah oo printerada HP-ga lagu isticmaalo ayaa hal xabba ka gasha. waa printer portable ah, la qaadan karo. shaqo badanna ma kaaraw markaa wax ku daawacaysid. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso printer oo jeeb gashi ah, warqad xaggee ayaa laga gelinayaa? way sahlan tahay. ugu horeen waa connect gareynaysaa, waa xiriirinaysaa, kadibna waa daareed. markaad daarto aad xiriiriso wuxuu leeyahay marka scan ayuu leeyahay oo QR code ah. codekaasi ayaa mobilkaaga ka soo bixinaysaa, daboolka gadaale ee printerkaad furaysaa, sawirad ka qaadaysaa codekaasi wuxuu kuu sii gudbinayaa meel kale oo software loogu talagalay, application loogu talagalay printerkaasi ah. mobilkaaga ayaad ka soo samaysanaysaa wax walba u baahan tahay, sawir ha ahaado, qoraal ha ahaado, wax allaala waxaad u baahan tahay mobilka ku samaynaysaa. automatically printerka wuu yaqaanaa, waad qabanaysaa kaliya slide aad ku samaynaysaa oo ah printerka meesha aad rabto inaad ku daabacdo aa kaliya marinaysaa. warqad ha ahaado, computer xitaa ha ahaado, korkiisa laptop meel metal ah bir waa ku samayn kartaa. waxyaabaha printerada kale uu dheeriyahay waxa waaye meel kasto aad u baahato waad ku daabici kartaa. warqad ha ahaado, bir ha ahaado, maqaar ha ahaado, kartoon korkiisa ha ahaado, xitaa alwaax, xitaa plastic. maqaarkaaga xitaa waa ku sawiri kartaa waxa rabto. meesha oo lagu sawiraayo liisha ha ahaato mise liisha yeesan ahaanin, labadaba waa u isticmaali kartaa. meesha lagu isticmaalo laftirkeeda xitaa haddii qalqaloocan tahay sida koofidaha oo kale waa u isticmaali kartaa, waa ku daawici kartaa. waa printer aad u yar oo jaabkana geli kara. markii lagu daawacana hal second ayuu ku qalalaa. waa quick dry, dhaqsi ayuu qalalayaa. jeebku wuu ku qaadi karaa. charger wuxuu qaadaa type C, noocyada afwaaweenka ayuu qaadaa taabkiisa. waa noocaas. qadamkii la bedelayna easy way, daboolka laga furaa, cartridge-ka yariiska ah oo printerada lagu talagalay mid ka mid ah ayaa galayso. waxay ku daabici kartaa printerkan u jeedaan oo yariiska ah ee PrintCube la yiraahdo. wuxuu daabici karaa 6 saacadood oo xiriir ah, consecutive ah ayuu wax ku daabici karaa. halkii cartridge ama halkii qad ee la geliyo wuxuu ku daabici karaa 415 A4 ayuu ku daabici karaa. run ahaantii waa nolol horumartay. teknolojiyadana maalin ka dambaysa way sii horumaraysaa. haddii bay soo baxday printer oo jeebka lagu qaadan karo, meel allaale meeshaad joogto waad ku xiriirinaysaa mobilkaaga oo ku daawacan kartaa. run ahaantii waa printer aad iyo aad cajaa'ib u leh. magaciisana waxaa la yidhahdaa PrintCube printer. waxaa laga yaabaa Soomaaliya welisan soo gaarin, laakiin waa available, adduunka wuu yaalaa. waxaa laga yaabaa xitaa meesha ugu soo dhow Imaaraadka inay tahay in laga heli karo. lacagtiisana mar aan fiirinayay qaali ma aha, $128 iyo waxaas uu ku dhow yahay. shaqada uu qabanayna aad iyo aad ayay u badan tahay. haddaad ka heshay muuqaalkan fadlan sii share garay, asxaabtaadan la sii wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.